maalintii 25aad ee barnaamijka afurinta dadka danta yar ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio. Ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio ayaa maalintii 25aad afurin u sameeyay dadka danta yar ee barakacayaasha ku nool duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio Samafale Abuukar Shuute Xuseen ayaa hogaaminayay barnaamijka maalinta 25aad. gudoomiyaha golaha sare ee ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio Samafale Abuukar Shuute Xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in waajib ay tahay in la garab istaago dadka danta yar isla markaana ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio mas'uuliyad gaar ah iska saari doono maalimaha ka harsan bisha barkeysan ee Ramadaan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Maanta waa maalintii 25aad ee barnaamijkeena afurinta walaalaha dadka danyarta ah ee kamamka ku yaal duleedka magaalada Muqdisho ayaan joognaa. ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio waa sanadkii 7aad oo si joogto ah u sameynaya barnaamijka afurinta ah. Waxaan u mahadcelinayaa guud ahaan inta ka qayb qaadatay gaar ahaan tiimka golaha fulinta ee ururka Doosio oo waqtigooda iyo juhdigooda ku bixinayaan oo maalinta koowaad ilaa iyo maanta 25aad la marayo. ururka horumarinta jiilka Soomaaliyeed ee Doosio markasta buuxiyegan u yahay inuu dadkiisa iyo deegaankiisa inuu u adeego. markastana waajib ay nagu tahay dhalinyarada Soomaaliyeed aqoon ah wax baratay maadaama aynu nahay inaan u istaagno dadkeena aan garab istaagno dadka danyarta duruufaysan. aadan ugu faraxsanahay inaan maalinta 25aad inaan soo gaarno inta yar oo noo dhiman insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay inuu noo fududeeyo. Cabdulqaadir Xasan Barrow, ururka Doosio, duleedka Muqdisho.